Assalaamu calaykum. Habeen wanaagsan. Ku soo dhawaada horsocod. Waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa qiso cajiib ah taasoo dhex martay 3 nin oo saaxiib ah kuwaasoo safar ahaa. Qisadan waxaynu ka dheehan karnaa inuu aadamaha qof waliba fikir gooni leeyahay. 3 nin iyagoo wadada wada socda ayay waxay arkeen nin wadada dhinaceeda hog ka qodaya. Kii koowaad ayaa yidhi, war bal eega ninkan wadada dhinaceeda hogga ka qodaya, talow ma qof uu dilay oo uu doonaya inuu ku aaso inta aan la arag. Kii labaad ayaa yidhi, maya, sheekadu sidaa ma aha ee waxaan u maleynayaa inuu bakhayl yahay, isla markaana hantiile yahay oo uu doonayo inuu lacagta halkan ku aaso si aan loo weydiisan. Kii saddexaad ayaa yidhi, maya, sidaa ma aha sida aan u maleynayo anigu. Waxaan u maleynayaa inuu ceelbiyeeda qodayo si ay uga cabaan dadka wadada maraya. 3doodii ayaa xoogay isqabsaday oo ku murmay, maya, sidaa ma aha sidaasaan u maleynayaa, iyo maya, sidaa ma sidaasaan u maleynayaa. Waxay go'aan ku gaadheen inay israacaan oo ay u wada tagaan isla markaana weydiiyaan sababta uu qodayo hogga. Inta ay israaceen ayay u tageen ninkii isla markaana waxay weydiiyeen sababta uu qodayo ceelko. Ninku waxa uu sheegay inuu deegaanku oomana yahay isla markaana dadka meesha maraya ay haraad ugu dhintaan, wuxuuna u sheegay inuu ceel u qodayo si ay uga cabaan. Waxaynu xigmadan ka fahmi karnaa qof waliba inuu fikir gooni leeyahay oo si gaar ah u fikiro, balse waxaa ceeb kuugu filan qof Muslim ah inaad xumaan ka filatid. Qofka wanaagsani dadka ku xeeran waxa uu arkaa inay wanaagsan yihiin, halka qofka xunna dadka ku xeeran uu arko inay dad xun yihiin. Weligaa ha ka malaysan qof Muslim ah wax xumaan ah.